بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالي وهان دورتان ويا رحلة بسنة وحاربتي لما مدحت حزبك يتاجريا شوا مرة واحدة السلام يا السلام تسلمك وعروتي فرحتي لما تينا فرحتها اللي بكسوق يبقى الله مناسبة سيدو الله بلاي كوس أوصل الوريجيكا لما مسؤول وصل صلاة وأبدوي حسبية قبل كم وديشة هؤلاء موضوع سعيد مصطلح يبدوي عصب حسين هذا العبد وأنتي سعيد مصطلح وأصله يا عي وأضدك ترضير سومالان شوغا هو يا أركستان marka maamulka leeyahay muddo badan uu soo jiray maamul macalin uu ahaa muddo dheer marka uu ahaa bare iyo maamul yaqaan iyo xirfad yaqaan uu ahaa oday uu ahaa mas'uul uu ahaa saa halka laga sheegayna wuxuu isku waday gobolkan ugu ballaaran jamhuuriyadda Soomaaliland sida la sheegay maqleysiisii waa nin talada dadka wax ka siiya waa nin tiimka ula shaqeynaya wata oo si wanaagsan ula shaqeeya rag iyo dumar iyo dhalinyaro guddoomiyaha cusubka waxaa laga filayaa intaan iyo ka badan haddii ilaahay ka dhigo سعيد سوى مجاهد نفسه سنة سعيد مصطفى وهاي لا مبرينا حلك اللون يبين يوفر ذي وهي أرق لمدي ولهانا إنه لقى بتاعنا له السوفي تقوم كأسو هي حسبي كمان كلا كذبه بس دوبيا أسوفه لا مبرينا إنه حلك يوفر ذي وهي لغة باهية إنه مسكرة بتاعنا وهاي مقربي سينا والله شغاينا وذهان حسبه أكون بورينيا حسبه أدين دولة ونكسن اسمه وين حسبه ونكسن اسمه ما هو كحسبه وين ونكسنه حير بولي حسبه حير كاين كلام بولي maamul baa jira sare iyo xarunta xisbiga gobollaa jira degmooyin baa jira marka hayarka xisbiga inaynu ixtiraamno oo gobolku xarunta ka amar qaato weeye degmooyinkuna gobolka amar qaataan xaafadaha iyo tuulooyinkuna ay ka amar qaataan degmada maamulkuba inuu yahay mid xiriirsan وأنا أسكوا ورنهم وهالشيء نوعي قوية ما دام يمكن أن ترشوا إلى نبسترنا وحرم هذا غيا بتجيتي ما ينتع حسب صاري صومر تيجوا كبروا يجاه والله كلام عفوا إن شاء الله إلى صومر طولان أحسن سيرينو كيبينو حالتي نقول يوم نمانو هنا كبيا إلى كبيرو وهذا شيء نيا ما دام وقت ورشلك عليه آل يجي وكعليا الحكومة طيب حساب العكس ورشلات كبير ويبان وهي وقت ما عليه آل مطوي هاي على باقي المسؤولين نمان أقف ورشلات إلى كبيرو حكومة السودان اللي ما تجوزها runtii way ku fashilantay adeega shacbiga waysa
waxa ugu daran aynu ka warqabnaa waa sicir bararka oo maanta qofka noloshiisii taabtay oo noloshiisii adkeeyey oo noloshiisii cidhiidhi geliyey halkii ka daweyn lahayd qayb bay ka tahay sicir bararka waayo maalin walba lacag cusub kala soo daabacaa cusub kala soo geliya taasoo qayb ka ah inflationka taagan waxaan soo jeedinaynaa xukuumaddu inay arrintaa wax ka qabato waxaan soo jeedinaynaa waxaa shacbiga warrinta ugu dambaysa ku diraya shacbiga Somaliland waxa weeye inaynu u diyaar garowno gaar ahaan Maroodijeex iyo Togdheer inaynu qaadanno kaararka codbixinta waa inaynu u diyaar garownaa inaynu qaadanno kaararka codbixinta si aynu xaq ugu yeelanno inaynu wax dooranno arrintaa waan ka wada shaqaynaynaa waajibkiina saaranee ka waad hadduu yahay guddoomiye iyo hadduu yahay hoggaan iyo hadduu yahay xogeeye iyo hadduu yahay garab dhallinyaro iyo hadduu yahay garab haween iyo degmo iyo gobol waa inaynu ka dib u qaadannaa sidii shacbiga ay u qaadan lahaayeen kaararka waa inaynu u diyaar garownaa inaynu ka badbaadinno shirqoollada iyo wax laga ganacsanaya shacbiga aad ba mahadsantihin